waa galabnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegantahay 16 bisha September sanada 2022 ku soo dhawaada warka galabnimo ee shabakada Sirta Media madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu hakiyay awoodihii ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble war-saxaafadeed ka soo baxay fila Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markuu arkay talaabooyinka qalafsan ee dastuurka ku-meel gaarka ah ee uu qaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Maxamed Xuseen Roble sida ku cad qodobka 87 xarfaha B iyo C iyo qodobka 9aad xarfaha B C iyo E markuu ka wacdo waajibaadka loo igmaday xukuumadda ee ahaa ka shaqaynta doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka sida ku cadeed khudbadii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka jeediyay golaha shacbiga koodii bishii May 2022 golahan uu tixgeliyay soo jeedintaasi markuu arkay in ra'iisul wasaaraha uu qaaday talaabooyin aan laga fiirsanin oo dalka u jeedin kara qalalaase siyaasadeed iyo mid amni markuu arkay in wasiirka koowaad uu sameeyo isku day ku xadgudub xuquuqda iyo mushaaraadka ciidamada qalabka sida iyo awood si qaldan u isticmaalida hay'adaha qaarkooda markuu xaqiiqsaday in ra'iisul wasaaraha la tashi iyo wada shaqayn la lahayn madaxweynaha isagoo ku dhaqaaqay inuu soo saaro go'aano ku keli ah oo aan waafaqsaneyn shuruucda iyo dastuurka dalka taasoo ay ka dhalatay xilgudasho la'aan maadaama madaxweynaha uu yahay astaanta midnimada qaranka ilaalinta iyo horumarinta mabaadi'da asaasiga ah ee dastuurka madaxweynaha waxa uu xiriyay qodobada kala ah maadaama wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka uu jabiyay dastuurka ku-meel gaarka waxa la hakiyay awoodaha wasiirka koowaad iyo dhammaan waraaqaha ka soo baxa gaar ahaan xilka qaadista ama xil magacaabis inta laga dhameystirayo doorashooyinka dalka oo ay u xilsaaran yihiin gudiyada madaxa bannaan ee magacaaban inta lagu jira xaaladahan hay'adaha kala duwan ee dawladda waxa ay sii wadayaan howlaha ay shacbiga ugu adeegaan ee lagama maarmaan ku ah socodsiinta howlaha xukuumadda si waafaqsan qodobka 120aad ee dastuurka ku-meel gaarka ah oo si cad u qeexaya in wasiir kastuu isaga mas'uul ka yahay howlaha wasaaraddiisa ayna tahay in lagu tixgeliyo iyagoo aan ku dhaqaaqi karin xilka qaadis iyo xil magacaabis inta laga dhameystirayo doorashooyinka dalka 3 maadaama ay dhameystirmeen dhismaha gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleedba xalinta khilaafaadka si buuxdana looga heshiiyay habraacyada miisaaniyadda qorshaha amniga doorashada iyo dhammaan waxyaabaha ay ku xirneed qabsoomida doorasho waafaqsan heshiiskii 17 September 2020 iyo habraacyadii lagu xaliyay tabashooyinkii ka soo laabtay 17 May 2021 lana gudagalay doorashooyinka labada aqal sidaas darteed waxaa lagu dhiirigelinayaa dhammaan hay'adaha ay khusayso howlaha doorashooyinka inay dardar geliyaan si waafaqsan jadwalka doorashooyinka ee la faafiyay ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo isugu jira booliis iyo military oo kala saftay laba beel ayaa ku dagaalamay aagga isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho dagaalka labada ciidan ayaa la sheegay inuu salka ku hayay dhul ku yaala aagga isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho waxaana labada ciidan ee dagaalamay mid ka mid ay ka amar qaataan sida la sheegay sargaal lagu magacaabo Liibaan madaxweyne oo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya wararka la helayo ayaa sheegay in dagaalka ay ku wacmeen 3 ruux oo shacaba oo goobta ku sugnaa waxaana wararku intaasi ku darayaan in dadka ku dhaawacmay dagaalku ka mid ahaa taliyaha ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haram Caad isla markaana qaybta ka ah booliiska Soomaaliya Cabdixamiid Cabdullaahi Fana sidoo kale waxa dagaalka ka dhashay khasaare hantiyadeed iyadoona dadkii ku dhaawacmay dagaalkaasi la gaarsiiyay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir oo war kooban ka soo saaray dagaalkan ayaa inuu sababay muran ka dhashay dhul ku yaala halkaasi sidoo kale Caliyara ayaa meesha ka saaray inuu dagaalkan salka ku hayo arrimo la xiriira siyaasad ama xiisada ka taagan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya u dhaxaysa madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka dhanka kale afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo warbaahinta shir jireed u qabtay ayaa sheegay in dagaalka maanta ka dhacay magaalada Muqdisho u dhaxeeyay laba maleeshiya beeleed isla markaana aysan jirin ciidan ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ku dagaalamay isgoyska Banaadir sida hadalka u dhigaafayeenka xaaladda ayaa haatan mid degan waxaana dib u soo laabtay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha oo intii uu dagaalkaasi soconayay gabi ahaanba hakad galay daawadayaal waxaa daawanaysaan qaybaha hore warka Sirta Media markan haddii aynu eegno ilwareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in agaasimaha ku-meel gaarka NISA Saraya Guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe lagu wareejiyay maamulka maaliyadda ee hay'adda sugidda isirdoonka qaranka Soomaaliya NISA xogan helna ayaa sheegaysa in wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle uu hoggaansamay amarka ra'iisul wasaare Roble ee ahaa in Bashiir Goobe uu yahay agaasimaha saxda ah
ee hay-adda nisa sidaasi darteedana ay isaga u gacangeliyaan maamulka miisaaniyadda nisa. miisaaniyadda loo gacangeliyey Bashiir Goobe ayaa ku dhiirigelinaysa go'aankii uu shalay qaatay ee uu ku magacaabay taliyaha nabad-sugidda gobolka Banaadir Gaashaanle Muxudiin Maxamed Jimcaale. arrintan ayaa dhinac u ridi karta loolanka ka dhexeeya ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo oo isna agaasimaha nisa u magacaabay Yaasiin Faray oo ahaa taliyihii hore ee nisa ee gobolka Banaadir. waxay sidoo kale keeni kartaa arrintan in laga baaqsado iskoorimaad ku salaysan cidda maamulaysa hay-adda iyo xarunta nisa. xarunta Habarqadiija ayaa hadda waxaa haysta ciidanka waran ee taageersan Rooblaha se yeeshee ciidamada duufaan oo taageersan Farmaajo ayaa jooga aagga xarunta, taasi oo hor istaagtay in Bashiir Goobe uu xarunta tago. ra'iisul wasaare Roble ayaa diiday in ciidankaasi awood loo adeegsado si aan dhiig u daadan, hase yeeshee hadda oo dhaqaalihii nisa uu gacanta ku hayo waxay keeni kartaa in ciidankaasi hoggaankooda ay tartiib u kala siibtaan. tani ayaa noqon doonta mid saameyn ku yeelata madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaana taliyaha u magacaabay nisa ee Yaasiin Faray gebi ahaanba uu iska casili doono go'aanka aan loo meeldayin ee ka soo yaray Farmaajo, isagoona sida la sheegay dhanka Roble la filayo inuu soo maro saacadaha soo socda. sidoo kale warar hoose oo aan ka helino xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sheegaya in haatan uu soconayo kulan xasaasi oo u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute, siday ogaatay sirta media. kulankani ayaa la sheegay in diiradda lagu saarayo shirqoolada uu maleegayo madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday oo la sheegay inuu diyaariyey warqadda xilka qaadista gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, balse kaliya ay dhiman tahay inuu shaaciyo in xilka uu ka qaaday gudoomiye Shuute, maadaama Farmaajo uu ka soo horjeedo in Ikraan Tahliil Faarax ay hesho cadaalad, isla markaana shakhsiyaad aad isaga ugu dhow ay ku lug yeesheen kiiska Ikraan Tahliil Faarax. ilaa waradii lagu kalsoon yahay oo sirta media uu sheegay in qorshaha xilka qaadista Shuute uu qayb ka yahay isku dayidda lagu doonayay in lagu baabiyo baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil Faarax, isla markaana Rooblaha tan kulanka uu la yeelanayo Shuute looga arinsanayo sida laga yeeli karo go'aanada lama filaanka ee ka soo bixi kara madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. adigoon wareerin warar sugan oo xaqiiqa waxaad ka helaysaan waa sirta media ka dhigo weelka ruma. sirta media sirta media